الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo bishu 7 tahay bishii 6 waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa team ka socda Civil Vocational Training Institute la yiraahdo oo inooga yimid dalka Imaaraadka in walaalaanahay si inoola arkaan amba inoola shaqeyn doonaan future-ka wixii halkan aan ku hayno gacmooda jiraan aan ku wada shaqeyn doono teamkan aad aragtaan waxa weeyaan qolada maxaa la yiraahdaa Civil Vocational Training Institute ka mas'uuliinta marka waxaan leenahay soo dhawaada dalku waa dalkiini wada shaqeyn fiican gacmo furan iyo weji furan ku soo dhawaada alaykum raxma taliyuhu aad buu mahadsan yahay soo dhaweyntu nagu soo dhaweeyay xogayaha dawladda hoose teamkan keenistoodu waxay nagu dhalatay berigi dhaweeday dhibaatada dabku ina qabsatay ayaanu ku fikirnay inaanu keenno team dadkeena wax bara xagga safety-ga marka waa akaademiyad ka dhisan Imaaraadka ka shaqeysa maanta ayaan Ilaahay noo suurtageliyay inaan wadankeena ku soo dhaweyno waxaan rajaynaynaa inuu ay naga caawiyaan inaga xagga aqoonta iyo dhinac walba xagga dabka iyo safety-ga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصباح hore subaxyo kamida aynu shaqooyinka caadiga aynu ku jirnay maanta waxaan dalka ku soo dhaweynay institute-ka weyn ee fadhigiisu yahay wadanka Imaaraadka runtii aynu walaalahan ahayno sida dhow wada shaqeyno oo runtii training iyo khibrad iyo waxbarasho iyo wax kororsi inaga siin doona qaabka loola dagaalamo dabka amba la iskaga difaaco dabka maadaama ay ogeydeen barigi dhaweeto dhibaatadii ugu weyneed qabsatay ee suuqa waaheen dhaqaalaheeni burburisay xooggeeni xoogaa weeqday in sida aynu difaac ugu yeelan lahayn marba marka dambeysaan aqoonteeda kor u sii qaadno ciidamadeena difaaca dabka Assalamu alaikum. My name is Mohammed Hussein. We are a UAE-based health and safety, like a civil vocational training academy. So we are really appreciating the entire management, His Excellencies, to inviting us. And we are really glad to be here. And we are going to work together to improve in Somaliland health and safety, like occupational health and safety system and educational programs over here in Somaliland. So our aim is to support the government to make Somaliland one of the safest in occupational health and safety country, as well as create a safety awareness, in example fire, first aid, any other work related on-job occupational health and safety system among the public and the government sector. So that is our aim, and inshallah we hope we're going to achieve by working together with the public sector, private sector and the government. Thank you so much.